siyaasi Cismaan Axmed Maxamed Kujare kana mid ah xisbiga wadani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay madaxweyne Biixi waxaanu tilmaamay khudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalintii shalay ahayd uu jeediyay safarkii uu ku tagay dalka Djibouti. Abwaan Kujare waxa uu sidoo kale tilmaamay in madaxweyne Biixi uu kala qaybiyay shacabka Soomaaliland taasina sabab ay u tahay qabyaalada xilligan ku sii xoogaysanaysa dalka. waa sida uu hadalkiisa u dhigay abwaan Kuye. madaxweynaheenu waxaad moodaa inuu yahay madaxweyne xaafadeed ama madaxweyne qoys kii la doonaba hal ilaano madaxweyne qaran ahay sababtoo ay tahay khudbadihiisii waxa ka mid ahaa wuxuu yidhi doorashadii aynu ka soo gudubnay dadka reerihii way kala qaybsiin oo reerkii laga badiyayna wuxuu arkay in laga badiyo aabahay goblayay buu qaaday reerkii badiyayna isaguna dee magaraysa anigu aan ka mid ahayna saasoo hadda u dhigayaan madaxweyne anigu aan ka mid ahay iyaguna dee libti maysa siiyeen markaa waxaan u sheegayaa taas waa kaa wuxuu yidhi waxaa laynagu xantaa haddii aynu galbeedka nahay nabadgelyo waxaa laynagu xantaa aqoon waxaa laynagu xantaa oo ay dadka bari jooga oo dhan yar iyo weynba ay inagu majeertaa gobolada cagaaran marka laga soo bilaabo berbera كم كسر جيبكي ومقنية قبل هذا عقارب كوا قلالم يوم مقنية كسر جيبكي نبض بقى لين وحن ترى برجع أولاد بقى كتير أيها كسر جيبكي ومقنية أقوم بقى لين وحن ترى برجع أقوم درت على كسر جيبكي مركال كان وحن لا مدحونه يمدون يمرأين ومرضى بس هون أو برجع عد كدون مايو وأنا إنتاس أو بور أو شير آخرين وباي خدريس أي واحد سكر كتير مالو ولا أو قلبه تقبل واحد ومدحوين قلبه ويان ومدحوين حافظين وعاقل غير هل كان مركب وتقول وحاسو بري وصور نقول درو كشيجية وكشيجية شاهدين وكشيجية وكشيجية إن الجليد درو كشيجية بري جاي قلبه كان بيسجل مدحوين عدك وبري كهلا يوكو قلبه كهلا وحنفيله يا إنه كيو بري كهلا وفربدين لكن بلا ما أنت حافظه له كل يوم كفرانه لو حفره يعني حافظه له عضين طبعا ممكن عد مكان قرب الكلام قدر يا وحوي حسب كلمية وحكوا عام بحي كلا قيبين ترددك هي قبيلة هي طلاعي أيكوا عام بحي وح عضين إنسان برجع وح الله صادره وح الله صادره وسير هذا الله صادره هو برعو يمين قلبياتك هي برجع السقاية بلاس waxaan ku arkay wasiiradii habar jeclo oo aanu mid ka maqnay 3 sanadood kadib ayay ku soo noqdeen wixii ay la yimaadeenna waxay ahayd kala fiqin markii ay balaas yimaadeen iyaga laftirkoodii baa raas dadkii si kala fiqiyay oo mid walba waxaan arkay isagoo meel yar oo qola la galay xaafad oo galbeedka booqda iyaguna sidaas oo kale rag baa loo soo dirayo سعيد سلبي أي كتيرانو يقول السلاح صقر ويقول الفكرة إن عبد العال وح كدقي وديال كان ليه هذا ما يكافي يقول وح كدقي بلاصة إنت وح كروين إن يقول السيرودي أو السكر أنا قبل كتب ليه وعي جنتي سكلا شراب وأيضاك السكينة وعي جنت فرع ومد وح كله تعوام بدمو وكل مدة ميسان وح يكون بدلك تعوام بدمو كلا فقين إياه كلا حافظين إياه كلا خيرين وبدأ وح يسكر ليه المجد madaxweynaha xaafadda ka hadlaya ee markii hore misaajin dooranay hadii ay min aqooyahana doorano mala waxa sinaguma dhaceen isagana waxa leeyahay madaxweyne qaranka abwaan Cismaan Kujare oo hadalkiisa sii wata waxa uu komishanka doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay in ay kordhiyaan muddada qaadashada kaadhadhka codbixiyayaasha ee gobolka Togdheer taasi oo tilmaamay in aanay bulshadu wacyigelin ku filan aanay xilligan haysanin diiwaangelinta soo food saaray waxa weeyaan dadkii 40,000 ee kaadh ku dhawaa ee aan markii hore ama codaynin ama aan kaadhadhkoodaba qaadanin maanta waxay wacyigelin la'aan awgeed waxay ku dhaceen dadkii dhimil bay ku dhaceen duplicate waayo dadka lama wacyigelin qofku garan maayo mar hore aan isdiiwaan geliyay laakiin kaadhkaygii baanan qaadan
double duplicate buu samaynayaa mar labaad buu dadkii dibatana halkaa waxaa ku gubtay kaadhadhaadu fara badan baa ku gubtay waxay ahayd waqtigana uu koobay oo dadkii haddii la soo qaadi lahaa waqti aad buu koobay marka halkaa horta marka hore waxaanu codsi kuushika ugu diraynaa in dadka loo kordhiyo muddada ugu yaraan 7 cisho ama 8 cisho loogu daro maadaama ay fogaadeen oo dadkii ay meel fog ay jiraan oo ay ama wajibaq ku imanayaan ama dee u baahan yihiin la soo qaado geesta kale abwaan Cismaan Axmed Maxamed Kujare waxa uu ka hadlay safar uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya marka maalintii horena waan sheegay imakana waan sheegayaa safarkaas wuxuu ahaa safar yar oo shakhsi oo aniga ii gaar 7 maalmood baan ku maqnaa Muqdisho waana ka soo noqday Muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka dunida waana la tagi karaa qofka haddii uu dan yar ka yahay uu tagi karaa markaa safarkaygu intaas u daarnaa Cabdiqani Baafa telefishinka Star TV magaalada Burco